madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo habeennimadii xalay ka hadlayay munaasabadda 1 Juulaay oo ku beegan 750 sanadood ka hor markii Soomaaliyadii koonfureed ay xorriyadda ka qaadatay waddanka Talyaaniga isla markaasina ku beegan markii ay israaceen Somaliland iyo Soomaaliya oo ka xoroobay Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa madaxweyne Farmaajo oo soo xiganaya hadal uu sheegay madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu shacabka Somaliland ugu baaqay in aan la kala maarmi karin isla markaasina maray ahaataba la isu soo noqon doono waxaan rabnaa inaan xusno Prime Ministerkii hore Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliyeed oo hadalladii ugu dambeeyay uu yiri oo ay kamid ahayd waa duuban tahay uu ka sii daay BBC-da Soomaaliya kalama maaranto maray tahayna way isu imaan rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabeeno dadka walaalaheena Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dhalinyaradooda dumarkooda culimadooda cuqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maaranno waa isu imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celino wada hadalladii si ummadda Soomaaliyeed ee mar kale u midowdo Allah ha u naxariistay madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo sanadkii 1999 khudbad ka hor jeedinayay baarlamaanka Somaliland ayaa waxa uu muujiyay mowqifka uu ka taagan yahay midnimo dhaxmarta Somaliland iyo Soomaaliya iraadadii shacbiga ayaa shalay markii ay lugeynayeen la geysay oo aanu diidan waan ka hadlayaa mowduucaas oo war badan oo suuqa jooga ayaan doonayaa maanta inaan reebe oo waan ka hadlayaa mowqifka aan ka taaganahay anigu arrinka ka taaganahay shalaytana waa tidabada iraadada shacbiga dabada inaga qabtay biduun qayd wala sharad geey halkan la fadhi waa maxay ahayd xamaasadda nagu jirta hadii ninkana taabta waa nagu gubanay xamaasadda nagu jirta rag baa hal waa la goostay mooyee macnahayn ku goosanay aniga iga buuxa rakama buux rag aniga sheegaya waa la goostay bay iyo maxay ahayd nimanka xoolaha dhacay sideetanaadkii dhacay ayuun baa anagu wax ka weyn baan hayaa waa ka buuxa waxaynu sababtay inaan nimanka u wada jiray ayaa iga buuxa lixdankii waxaynu ka baasgay halkan qaynuunkii la isku raaci lahaa Act of Union 23 article bay halka lagu baasgareeyay fadhiga halkaan fadhino ayaa lagu baasgareeyay baarlamaanka 30 ku baasgareeyay programadii maxay hayday celebrationka waxba lagaga madan baarlamaanka markaan marayn ayaa waa la fadhiyaa baarlamaanka baa la fadhiyaa war iyo wacaartoona kama hayno dhaxlayada meesha marayaba dibitaatiyaal baan ana Prime Ministerkii baan war kama hayno halkii la fadhiyo maxaa baarlamaanka lagu hayaa waa soo gal mursal mid oran jiray oo ka biyuutan meesha ka ayaa war mursal maxaa la hayaa magaashu atad unione ayaa laga hadlaa atad unione baadiyadi naqal talyaani ku qoran buu dhibo waa laba article waa la tuuray tiyaanu geyn tii aynu halka baas garaynay waa la tuuray laba article labadii dawladdu waa la isku daray baarlamaanka waa la isku daray bas labadii dalna waa la isku daray intaas hadda israacada oo ilaahay kama dhige aatirahan bar hadda caalamkii waa nagu yar dhaga adeegay oo malaa wixii socon maayaan bar hadda xaqii hadii aynu eegno tirahan ma raaciyo anigu idin ka haray hargeysa iyo berbera iyo burciyo laascaanood oo laga xukumo xamarna deganaan maayo waa ka xajiraya